السلام عليكم. cudurdaaradu waa musmaarada loo isticmaalo in lagu dhiso aqalka guuldarrada. boqolkiiba 99 guuldarrooyinku waxa ay ka yimaadaan dad kale caadada ah in wax walba cudurdaar loo sameeyo ama ku tiirsan hal shay oo kaliya. waxaa jirta sheeko ku saabsan dadka cudurdaarada sameeya. sheekadu waxa ay ku magac dheer tahay Sacaaga dil, waxaanay ku qoran tahay buugga himilada hana ee uu qoray Dr. Maxamed Siibad. asalka sheekadan waxa laga soo xigtay buugga la yiraahdo Beriba waxa jiray sac ee uu qoray Dr. Kumilo Cruz. sheekaduna waxa ay ku bilaabanaysaa sida tan: waxa jiray nin xikmad badan oo dadku talo iyo tacliinba u raadsadaan. maalin maalmaha kamida waxa uu yimid wiil dhalinyar ah. waxa aanu weydiistay xikmad waxtar leh si uu wax ugu qabsado adduun iyo aakhiraba. ninkii xikmadda badnaa waxa uu ka hubiyay wiilka in rabitaankiisa xikmadu tahay mid dhab ah. markaas kadib ayaa waxa uu la galay socdaal, kuna yiri anaa ku tusaayo waxa ay xikmadu tahay. maalin la socay oo maalin kale la socay oo tuulooyin badan la mar. kadib markii uu muddo la soconayay ayaa ninkii xikmadda badnaa wiilkii waxa uu sheegay inuu raadinayo reerka ugu saboolsan tuuladan ay marayaan. muddo kadib ayaa ay arkeen guri dhaqasho oo aad u baaba'san. waxa guriga banaankiisa ku xidhnaa sac reerku leeyahay. reerku waxa ay ka koobnaayeen 8 qof. 8 qof dhammaantood waxa ay ka shaqaynayeen sacaas, mid lisa, mid caws u dhiga, mid daajiya, mid xerada u ooda, mid daryeelkiisa kale u qaabilsanba. ninkii xikmadda badnaa waxa uu wiilkii ku yidhi caawa reerkan baan la baryaynaa. reerkii waa ay soo dhoweeyeen martida u timaaday iyagoo ka cudur daartay inay sacaas caanihiisa maahe wax kale aysan haynin. wixii ay haysteen ayaa ay la wadaageen. ninkii xikmadda badnaa waxa uu reerka u sheegay inay guuraynayaan oo socod dheer sugayo, waana ay nabadeeyeen reerka maadaama ay jarmaadayaan. intii aanay cidba kicin ayaa uu kacay ninkii xikmadda badnaa. waxa aanu ku leexday xeradii. markaas ayaa uu bilaabay ama mindi la soo baxay oo sicii gowracay. wiilkii ayaa qayliyey oo yidhi saca keliyata ayaa uu reerku leeyahay ee sideebaad u dili kartaa. ninkii xikmadda badnaa dheg jalaq umuu siinin ee hawshiisa ayaa uu watay. markaas ayaa ay shanqar la-aan socodkoodii sii wateen. markii ay 1 sano ka soo wareegtay muddada ayaa ninkii xikmadda badnaa waxa uu kaxeeyey wiilkii oo uu ku yidhi namari waan soconaynaaye. waxa ay yimaadeen tuuladii uu saca reerka kaga dilay. markii ay meeshii yimaadeen ayaa wiilkii garan waayey gurigii, inkastoo ay meeshu tahay goobtii uu ku ogaa guriga dhaqashka ahaa. waxaa bedelay guri cusub oo daar ah, waxaana ku horyaal beer aad u weyn oo dadka jooga ay mashquulsan yihiin. qof walibana hawl gacanta kula jiro. gurigii ayaa yimaadeen oo reerkii ayaa ay salaameen. waa la iskartay oo waa la iswaraystay. reerkii waxa ay u sheegeen subaxii ay ka tageen in mid habaar qaba uu sicii ka dilay, in ay maalmo barooranayeen, deriskuna u soo gurmaday. tacsi kadib waxa ay garowsadeen inay ka faa'iideysteen isbeddelka ku yimid naftooda oo wax hor la qabsadaan. waxaanay go'aansadeen inay beer tabcadaan maadaama ay qoys ballaaran yihiin. abuurkiisana markii ay bilaabayeenna waa ay deyn qaateen. xilligii ugu horreysay markii ay beertu u soo go'day ayaa ay deyntiiskaga baxsheen. wixii u soo harayna guri ayaa ay ku dhisteen. waxaanay qorsheynayaan in midho badan u soo go'aan. waxaanay yidhaahdeen inkastoo markii hore aad ugu barooranay, haddana waxaanu ogaanay waxa horumarka noo diidanaa inuu ahaa saca. markaas ninkii xikmadda badnaa waxa uu wiilkii ku yidhi xikmadda nolosha lagu horumariyo waa adigoo sacaaga dila. qof waliba waxa uu leeyahay sac ama derbi uu jebin karo oo ka hor jooga inuu hadafkiisa gaaro, taas oo qofku markuu fakaro kadib soo baxda oo khatar badan tusta. sidaas darteed qofka fulayga cabsi gelisa kadibna fakarkiisa burburisa oo horumarka u diida. haddaba raadi saca horumarka ka hortaagan kadibna gowrac si aad horumarka tiigsanayso u gaadho. cudurdaarada ay dadku ku cudurdaartaan waxaa ka mid ah cudurdaar xaalad caafimaad, cudurdaar xaalad lacag la-aan, cudurdaar xaaladda iyo wixii la mid ah. cudurdaar xaalad caafimaad waa adigoo ku cudurdaartay in jidh ahaan caafimaadkaagu dhammaystirnayn amaba aanad 6dii lixaad lahayn, sida inaad tahay curyaan, dhagoole, indhoole iyo wixii la mid ah. laakiin wax aasoo dhani cudurdaarku uma noqonayaan, kaamana hor istaagi karaan inaad noloshaada horumariso oo aad ka miro dhaliso riyooyinkaaga mustaqbaleed. qof heer sarena aad noqoto. waxa aad ogsoonataa inaad tahay qof wax bedeli karaa.
xaalad kastood ku sugan tahayna aad guul ka gaadhi karto waxa aad rabto adiga ayaa ay kugu xidhan tahay inaad horumar gaadhid. Dr. Zaki Cismaan waxa uu ahaa indhoole curyaana laakiin ma samaynin cudurdaar xaalad caafimaada. waxa aanu ku riyoon jiray inuu noqdo shakhsi muhiim ah, weliba khadiib, imaam, daaci. haddaba si uga miro dhaliyo riyooyinkiisaas waa inuu waxbarto. waxa aanu bartay qur-aanka kariimka, waanu xifdiyey. waxa aanu helay shahaadooyinka bachelorka, masterka iyo PhD-da. waxa uu noqday wixii uu ku riyoon jiray oo ahaa imaam iyo daaci. waxa kaluu noqday macallin jaamacadeed. waxa uu qoray 24 kitaab oo uu ka qoray dacwadda, tafsiirka iyo ilbaaxnimada, sidoo kale cilmiga bulshada. indhoolihii curyaanka ah waxa uu awooday inuu ku guulaysto riyooyinkiisa. Helen Keller waxa ay ku dhalatay indho-la'aan iyo dhaga-la'aan. waxa ay go'aansatay inay jaamacad dhigato. go-aankeediina waa ay fulisay oo waxa ay gashay jaamacad, waanay ka qalin jebisay. waxa aanay noqotay macallimad dhigta jaamacadaha. waxa kale noqotay qoraa oo waxa ay aliftay buugaag badan. siyaasadda waddankeedana waxa ay ka qaadatay door muhiim ah. Helen iyada oo dhagala indhoolana isma aysan dhiibin ama ma cudur daaran ee waxa ay ka miro dhalisay hankeedii. qisada saddexaad aynu soo qaadanayna waxa ay tahay Nick Vujicic. waxa uu ku dhashay luga la'aan iyo gacmo la'aan, laakiin waa dhiirigeliye iyo gubaabiye caalamiya. waxa aanu ka qudbadayaa jaamacadaha iyo dugsiyada sare. waxa aanu yidhi waxa ah wax laga xumaado inaad aaminto in laga fiican yahay. waxa kaloo ah wax lala yaabo inaad rumaysato inaadan waxba ahayn. haddii aynu u nimaadno qodobka kale ee cudurdaarka xaaladda lacag la'aanta ah, haddii aad tiraahdo waxba ma qabsan karo maxaa yeelay ma haysto furihii wax kasta lagu furayay oo ah lacag, waad qaldan tahay. dabcan ilaahay weyne waxa uu ku siiyey maskaxaad waxaad rabto ku samayn karto ee ka faa'iideyso caqligaaga. Dr. Ibrahim Alfiqi waxa uu leeyahay jeeb madhani weligii ma hor istaagin inuu qofku gaadho horumar, balse maskaxda madhan iyada hawsha qabata. Randy Cook waxa uu leeyahay ma tihid sabool haddii aad tahay bilaa lacag, waxa aad sabool tahay haddii aad tahay bilaa riyo. intaas ayaan jeclaystay inaan maanta idinla wadaago. wassalaamu calaykum.